بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. waxaa su-aal ka timid salaada ciid al adxa sida loo tukan lahaa ama sida loo tukanayo ayaa su-aal ka timid. alxamdu lilah wthanaau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. awalan salaat alciid aladxa iyo ciid alfitr salaada waa iskusi, waa labadii rakac iyo takbiiraadkii aan horeyna aan ugu sharaxnay ciid alfitriga. labada rakacada ugu horeyso oo 7 takbiir ah oo takbiirat alixraamkiina ku jirta, kadibna faatixadii la akhrinayo, suurat alaclaa inuu soomaalida inta badan u taqaan sabixisma, iyo rukuucdii caadiga ahay sidii caadiga loo rukuucay loogu tasbiixsanayey, sidoo kale sujuuddii iyo tasbiixdeedii. haddana marka laga soo kacahayo takbiirat alixraam lagu soo kaco, alxamdulilahi rabbilcaalamiin, halkaasna ilaa iyo 6 takbiirood. marka waxaan isxusuusinaynaa takbiir kasto takbiirta inaan iska dabagegeynin ee loo dhexaysiiyo inta laga akhriyo subxaana allahi walxamdu lilah walaa ilaaha ila allahu allahu akbar. takbiir maa bayna takbiiratayn, labada allahu akbar inta u dhexayso qadarkaas oo tasbiixda in la geliyo, oo qofku markuu allahu akbar uu yiraahdo subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar. rakacada koowaad markaad sidaa 7 aad ku dhammaystirto, faatixadii baad akhrin, waxaad akhrinaysaa suurat alaclaa ayaad akhrin, kadibna waad rukuuci sida caadada ahayd, tasbiixdii rukuucda ahayd subxaana rabiya alcadiim wabixamdih ayaad oran, waad sujuudi subxaana rabiya alaclaa wabixamdih, waad soo kaci allahu akbar. markaad soo kacdo yaa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, haddana subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah allahu akbar, ilaa 6 jeer. rukuucdii sidii caadiga ahayd iyo sujuuddii waad ataxiyaadsani, meeshaasaad ka salaamo naqsan. wax khudbana ma jiro, wax khudbadna ma jirto. tan labaad, qofkii ka haleeli waaya jamaacada oo masjidka ama cadadkii loogu talagalay ka buuxsama, haddaanan jamaacada kala jirin, gurigiisu ku tukan karaa. meel kasta ha joogo, meel kasta ha joogo, dal kasta ha joogo. alxamdulilahi rabbilcaalamiin. haddaad haleeli weydo meeshii lagu tukanahayay, aqalkaagaad ku tukanaysaa, taasoo maaragtay daliisheeda uu sameeyey saxaabigii jaliilka ahaa anas ibnu maalik, ilaahay ha ka raali noqdee, markuu haleeli waayey jamaacadii ay ka tagtay, ayaa gurigiisii ayuu ku tukaday. marka qof kasto meel walba uu joogo, haddiiba salaada uu haleeli kari waayo, uu ka gaari waayo, maaragtay in uu gurigiisa ku tukado. marka haddii markaa uu familkii la tukanahayo, caruurtiisii, waxa weeye haddii wiilal ay jiraan, hal hadduu yahay wiilasha midigtiisuu istaagahaya, hadday 2 yihiin iyo ka badanna gadaal bay istaagahayaan cafwan. kadibna hooyadii iyo gabdhaheedii baa xigahaya. midda kale waa inuu sitra yeeshaa, sitra waa inuu yeeshaa. sitra waxa weeye inuu derbiga isku aadiyo ama inuu wax ishor dhigo. marka takbiirat axraamkana
إن salaad ciid al-adxa maalmaha saddexda maalmood oo ilaahay la xusahayo oo maaragtay takbiirta la qaadayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar walilaahi alxamd. waxa weeye salaad kasta oo fardi ah ee aad tukato ma garatay ayaa haddii ilaahay kuu roon yahay bacdigeeda ayaad la imaanaysaa takbiirtaas. inta salaada wakhtigeeda la sugahayana salaada ciid inta la sugayana in ma aragtay takbiirtaas la takbiirsado ilaa wakhtiga. waxa weye wakhtigana qoraxda markay soo baxdo ilaa adiga 20 daqiiqo ama rubi saac waa ay si fiican ay u soo baxdo markaasay ka bilaabanaysaa wakhtiga waxayna ku eg tahay ilaa quraabata salaada duhur yaa ay ka soo dhowaato adiguna 20 daqiiqo oo kale iyadoo ka dhiman tahay salaada duhur ayay ku ekaane intaasay muddadeeda ay la eg tahay. muddada yaa maaragtay la tukan karo salaada waa qoraxdoo waran maaragtay afkii dherarka ay gaarto ilaa ay maaragtay zawaalka ay ku soo dhowaato ilaa ay zawaal yaan dhihinaya cafwan ilaa ay ku soo dhowaato duhurkii wakhtigiis waa zawaalkii ay ku dhowaato intaas wey wakhtigeeda. meel kasta hala joogo qofka hadduu haleeli kari waayo iska dhaaf meelaha aanan la fasixin masaajidyadeeda bannaankeedii la fasixin dadka jooga laftood ayagana xukunkaasay qaadanahayaan oo maaragtay sayidina anas ibni maalik radiallahu canhu maaragtay arrinkan laga warinahaya oo ficilkaa sameeyey. marka insha allah taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay naga aqbalo rabbi subxaanahu watacaala cibaadadiisa ilaahayna maaragtay kuwii loo dembi dhaafa allah inaga dhigo. sala allahu wasalama calaa nabiyina muxammad wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam tasliiman kathiira.